Bismillahirrahmanirrahiim. Dhammaan dhageystayaasheena ku xiran channelkan halkan ayaan idinka soo gudbinaynaa dhambaal hambalyo kaasi oo ku wajahan curashada bisha barakeysan ee Ramadaan, taasi oo dhammaan dunida dacaladeeda iyo gudaha Soomaaliya laga sooman yahay inta badana. Waxa ay noo tahay maalinta koowaad oo ah maanta maalin Talaado, taariikhdan ay ku beegan tahay 13 bishii Maarso. waxaa gebi ahaan laga soomay inta badan caalamka marka laga reebo wadamo yar oo qaas ah iyo gobollo ka mid ah kuwa Soomaaliya magaalooyin qaas ah. hase yeeshee culimada dhammaan ayaa isku raacday inay tahay maalinta koowaad sababtoo ah oo laga arkay wadamo badan oo muslimiin ah caalamul muslimiin ka mid ah iyo gudaha Soomaaliya magaalooyin ka mid ah sida magaalada Garowe oo laga soo wariyay halkaasi inay arkeen dad muslimiin ah oo ku sugan ayna ku faafiyeen dhammaan baraha bulshada qaybaheeda kala duwan. dhanka kale sidaasi oo tahayba waxa buuxsamay oo la buuxiyay bishii 30keedii oo waxa ayba noqonaysaa maalintii koowaad ee bisha Ramadaan. waxaan leenahay laga faa'iideysto bishan oo juhdi hala bixiyo kheyraadka sida Qur'aan akhriska sadaqada maaragtay istighfaarta iyo waxyaalaha la midka intaasi oo taasi oo dambi dhaaf waa bishii uu yiri Allah aniga ayaa iska leh Soomaaliya ayuu yiri. marka waa inaan ka faa'iideysanaa waxyaalihii aan soo wadnay 12 bilood oo ahaa waxyaalo yaab leh oo xan dhibaato iyo waxyaalo kale oo aad u far badan aan soo sameeynay. haddaba ku dhiirigeli ummadda muslimiinta oo hambaliyay ummadda muslimiinta sida ay ugu faraxaan bishan kuna baraaruji inay qeyrkan ka faa'iideystaan jaaniskan. run ahaantii waxaan la soconaa dad badan oo nala soo soomay Ramadaankii hore haatan aan soo gaarin weli qaarkoodna ayba dhinteenba xilli Ramadaankii uu ka dhiman yahay dhowr week ama maalmo qura oo aad u yar. taasi waxay ku cadeynaysaa in nasiib aad u yeelatay in halkan aad soo gaarto dadaal xaggaaga ka yimidna aysan ahayn oo Allah uu ku suuro geliyay. asxaabtii waxay ku duceysan jireen lagana soo wariyay 6 bilood markii ay ka harsan tahay soonka inay Allah ku bari jireen inuu gaarsiiyo fadliga bishaasi ayna ka faa'iideysan doonaan ayagoona si wanaagsan ugu faa'iideysan jiray. 6 bilood ee dambe ee soonka marka walkaasi ku ilaada ama laga gudbana waxa ay sameyn jireen inay Allah ku bariyaan acmaashii ay soo sameeyeen inuu Allah subhanahu wa ta'ala ka aqbalo. haddaba Allah naga dhiga kuwii ka faa'iideysta bishan oo cibaado la yimaada istighfaar iyo dambi dhaaf intaba Allah ugu abaal gudo isla markaasna reereen iyo barwaaqaalkaasi ku soo guuleysto. waxaa jira dad badan sooman oo ah dameer af xiran sababta aan sidaasi u leeyahay ayaa waxay sameynayaan intii laga mamnuucay oo wax walba ah. waxa ay caynayaan dadka waxay xamanayaan dadka waxa aysan dukanayn qaarkood salaada xilli ay ku habsaamaan laadhu iyo waxyaalaha loo yaqaan ee la dheera ama waxyaalaha kale ee shaxda ama jarta intaba waxyaalahaasi isku soo wada duubo oo ciyaaraha lahwiga loo yaqaan ama la iska ciyaaro oo waxba macna aan soo kordhinaynin.